caawa waxaa bilaabmaya kooxdii koobaad ee ku tartami lahayd hal abuurkooda ganacsiga. saddexda kaalmood ayaa lagu kala tartamayaa. kaalinta koobaad oo ku guuleysan doonta $7,000, kaalinta labaad $5,000, kaalinta saddexaad $4,000. wadarta guud waa $16,000. qof walba wuxuu isku dayi doonaa inuu fikradiisa iib geeyo si uu ugu guuleysto kaalinta koobaad. waxaa soo xariistay barnaamijkan in ka badan 799 ganacsi. waxaa la soo xulay oo shuruudihii buuxiyay 290 ganacsi. waxaana si toos ah u soo baxay markii dambe 20 ganacsi oo run ahaantii noqon doona kuwa tartami doona imika oo aad xagan kala socon doontaan bisha barakeysan Ramadaan. waxaana goobjoog ah oo garsoori doona xildheerayaal dhanka ganacsiga oo kamid yahay qoraaga buugga Xilkas Cabdikariin Cismaan, dhanka kale Ibraahim Siciid isagana macallin dhanka ganacsiga ah, sidoo kale Ustaad Cabdiraxmaan Cali Xirsi oo isagana ah gudoomiyaha Hazi Consultant. dhanka kalena waxaa isaguna gudoomin doona Xamse Cumar Kujoog oo isaguna dhankaas aad ugu xildheer sidoo kalena arrimaha bulshada in badan ku guda jiray. caawana xagan waxaa taagan kooxdii koobaad iyagu soo bandhigaya hal abuurkooda ganacsiga ah. waxaan ku jirnaa qaybtii koobaad ayaan bilaabaynaa. waxaa garabkayga taagan kooxda Dalba Food. waxaan jecelahay inaad si fiican ila soo dhaweyseen. magacaaga saddexan baad ku bilaabaysaa, gobolkaad ka timid iyo hawshaad halkan ku wado. 5 daqiiqo aad haysataa. fursadda waxaad uga faa'iideysan doontaa inaad presentation fiican aad ku soo bandhigtaa halkaasi, kadibna khibrada halkan fadhida su'aalaha kugu bilaabi doonaa. magacaaga ka bilow. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وخضر محمد عمر. waxaan ka socdaa gobolka Maroodi Sheekh Hargeysa. shirkadda Dalba Food runtii waxa weeye waa shirkad kamid ah shirkadaha magaalada ka shaqeeya xaliyan. Dalba Food sida magaca ka muuqato waa food delivery company ama waa shirkad keenta cunto keenista. waxaa la aasaasay sanadii 2018 horaanteedii. waxaana aasaasay Khadar Maxamed Cumar oo aniga ah. waxaan businesskan ku aasaasay $125 oo kamid ah mushaharkayga markaa shaqaale ahaa. waxbarashada kala duwan Hargeysa ma ku qaatay hoose dhexe ilaa sare. qeexida shirkaddu waxa weeyaan shirkadda Dalba Food waxay ka shaqeysaa food delivery industry-ga. inta badan waxaanu isku xidhnaa hodheelada iyo macaamiisha. wax kastoo cunto la xiriirana waa laga helaa. marka sida iminka hodheelada kale, bakhaarada kale, supermarketada iyo boosharida ayaa dhammaan ku jira applicationska aanu leenahay iyo website-ka shirkaddu leedahay. sidoo kale macaamiisha waxay naga heli karaan adeegyo aad u hufan sida call center-kayga oo inta badan adeegyada macaamiisha ugu adeega sida ugu fiican maadaama dadku inta badan internet aanay haysanin. qeexidii baynu kusii jirnaa. higsiga shirkaddu waxa weeyaan insha Allah inaanu gaadhno aanu ka mid noqono shirkadaha ugu horeeya ee adeeg cunto keenista qaaraddan Afrika intaan la gaadhin sanad guurada 10aad ee shirkadda insha Allah. himiladuna waxa weeyaan runtii inaanu ka jawaabno baahi kaste oo ku saabsan adeegga cunto keenista network aan ka shaqeynaa ama eriyooyinka aan ka shaqeynaa shirkaddu ka qayb gasho ka howlgasho. ujeedooyinka shirkadda iyo hadafyadu way badan yihiin. hadafyada waxaa ka mid ah inaanu kordhino faa'iidada shirkadda. waayo business waxaa loo sameeyaa in faa'iido laga helo. runtii inaanu kordhino faa'iidada shirkadda. sidoo kale qodobka labaadna inaanu kor u qaadno xirfadda shaqaalaha. waayo shaqaaluhu waa resource-ka aan wax ku soo saarno. ujeedooyinka shirkaddu waxa weeyaan yareynta kharashka 10%, qabashada tababaro kor loogu qaadayo xirfadda shaqaalaha iyo kordhinta iibka 20%. adeegyada aan bixino iyo badeecadaha aan bixino waxaa ka mid ah inaan dadka cuntooyinka ugu geyno guryahooda sida quraacaha, qadooyinka iyo cashooyinka. sidoo kale waxay dadku naga heli karaan raashinada kala duwan iyo adeega guriga ama adeega khudaarta oo kale. macaamiisha markay timaado macaamiil badan baan leenahay waayo qof kastoo inaga mid cunto u baahan yahay. qof aan cunto u baahnayn ma jiro. marka liiskaasaa ka mid ah dadka guryaha jooga, shaqaalaha, shirkadaha dawladda iyo dhammaan waxa weeyaan mataqaana dadka halkaa ku taxan oo dhan. xaddiga suuqa runtii suuqa marka food delivery-ga laga hadlayo waa suuq aad u ballaaran oo runtii waxa weeyaan aan la soo koobi karin. sidaas oo ay tahay annagu inta badan waxaan target gareynaa labor force ama dadka shaqaalaha. taas macnaheedu waxa weeyaan in magaalada ama Soomaaliland waddanka Soomaaliland in ilaa 500,000 qof oo shaqaalihi ay jiraan ama 500,000 shaqaalihi ay jiraan. marka market share-kayguna halkaasuu ka imanaya. maamulka iyo shaqaalaha shirkadda waxay ka kooban yihiin. shirkadda imika waxa ka shaqeeya 10 qof. waxaana isugu jiraan maamulka shirkadda, maamulka xigeenka, maamulka lacagta, madaxa iibka, madaxa xiriirka dadweynaha bulshada, madaxa IT-ga Cabsaaq iyo 4 darawal oo delivery-ga sameeya.
saameynta dhaqaale ay leedahay adeegani waxa weeyaan inay samayso malaayiin lacagow sidoo kale ay shaqo abuur u samayso dhalinyarada maalgelinta aan doonaynaa waa $7,000 waxaan ugu talagalay inaan ku iibsano kombiyuutarro qalabka kitchada aan doonaynaa anagu aanu samayno cuntooyin yaro fudud oo qiimo ahaana macquula mootooyin iyo shandadaha deliveryga kuwaan aan xambaarsanayo kala barnaamijyada aan ka qayb galnay waxaa ka mid ahaa 2018 Innovate Venture walow aanan ku guulaysanin laakiin wax badan baan ka baranay iyo 2019 aan ka qayb galnay barnaamijka Harab Accelerator Program oon ahayn tiimamkii ku soo baxay runtii aad baa mahadsantihiin aad bay mahadsan yihiin run ahaantii kooxdani waa koox magaca la baxday Dalba Food waxay u shaqeeyaan qaab aad casri ah oo ah inay food delivery sameeyaan 2018 ilaa imika ay shaqeynayeen waa anigu lafteedana waxaan ka mid ahay macaamiisha ku xiran marar badan oo ka adeegata run ahaantiina aad baan u bogaadinaynaa inay ka qayb galaan barnaamijka insha Allah waxaan rajeynayaa inay ku guuleysan doonaan imikana markaa waxaa la weydiin doonaa su'aalihii markaas ganacsigooda ku saabsan خالد مكلي دفاعي مش صحيح كل دفاعي أحد ما كل شيء وتاي واحد يقول تشد أنا أنا برامج كيف هيستان لحد غاض هيستان واحد يدري تشين أنا تقول هيستان إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم كواحدة البما فود وأنا سولو وين إننا وحنان إذا كل رجالين إن برنامج كان هذا كل جولي ستان يهدينا كل جولي سنبه aad hawsha halka ka sii wadaan ilaahay idinkiina guul baan idin rajeynaynaa su'aasha koowaad ee aan rabo inaan idin weydiiyo waxa weeye waxaad tiri waxaan nahay u dhaxeeya hodheelada iyo dadka idinku lacagta xagee ka samaysaan review modelkiinu waa sidee number 2 lacag intee leg baa idin soo gasha tusaale ahaan bishii aad baa mahadsan tahay macallin Cabdiraxmaan runtii waa su'aal fiican kusoo dhawaado jawaabta revenue modelka ama san lacagta u generate waxa weeyaan waxaan bixinaa food delivery oo waxaan delivery charge ban qaadnaa marka labaad waxaan sameynaa adeeg la yiraahdo catering oo inta badan qabana shirkadaha hay'adaha iyo dadka casuumadaha marka ka anaga qabana oo anaga diyaarina runtii oo tusaalahaan oo kale heesiyo kale markii tababar qabanayso waxay u baahan tahay sneaky cunayeen iyo waxa weeyaan waxyaalihii sharaab ama qado markii baahnay ka anaga sameeyna kaana waan ka sameeynaa revenue waan generate kareena sidoo kale waxaan sameeynaa packages marka packages kana waxaan Ahmed bin balsan u sameeynaa iyo waxyaalaha ay kamid yihiin bismillah packages waxay ka kooban yihiin aan bixinaa package kala duwan sida iftar package oo package-kaas wuxuu noqonayaa imka Ramadaan to kale dadku marka soo galaan waxa jira dad shaqaalaha iyo maalinkii oo dhan shaqada ku jiray ka bacdi waxay qaadanaysaa waqti intay cuntadii soo baxayaan ay doonanayaan sida daraadeed bisha waxaanu bixinaa iftar package-kaasi afurkiiba ka koobnaanaya afurkii yara fududa ama culus ama casha hawato waxa kale oo bixinaa maalmaha soonka oo kale aanu isagana bixinaa waxaan kale oo bixinaa maalmaha Eid ayaanu bixinaa waxa jira dad safar baxa oo package-kaasi wuxuu qabanayaa family oo kale markay maalinka Eid israacayaan ayaa package-kaasi way cuntadiiba dalbanayaan annaguna catering-ka waan sameynaa waxa kale oo jira package la yiraahdo sidii catering-ka soo khadar sheegay catering-kaasi wuxuu ka kooban yahay marka meel lagu qabanayo muxuu ahaayay munaasabad lagu qabanayo in cuntadii aan anagu adeegno taana aan anagu sameeyno marka ilaa $20,000 bishii revenue waan sameynaa marka kharashaadka laga jarano kulli business plan-kii ku qornay waxaan idinaya marka ugu horeysa waa runtii waa adeeg aad loogu baahan yahay maadaama adduunyada marka ay isu bedeshay in computerka lagu shaqeeyo iyo office work dadkii ay maaragtay marka u baydhay shaqadii marka waa business idea de maaragtay waqtigeedii joogtee waxaad sheegteen 500,000 oo qof haba milyan maaragtay labor force in Somaliland ka jiro soo saameeydan oo ragseeto marka maxaad ku qiyaasaan intee leg baad hesheen so far oo marketka mar hadduu 500,000 yahay imisa ayaa macaamiishiina aad baa mahadsantahay Cabdikariin runtii marketkaygu aad buu ballaaran yahay saan sheegnay iminka xaaliyan magaalada Hargeysa aan ka shaqeynaa marka customerskaygu marba marka dambe sii kordhiyaan dadmiis waxay ku xiran tahay marba adeegan soo kordhin waxaad sheegtay inaad
4 sano 2018 business ilaa iminka imikana marka waxay noqonaysaa 4 sanadood iyo badh aad iyo aad 4 sanadood iyo badh sanadkii ugu horeeyay intee kasta markuu numberkiisu muxuu ahaa sanad ma sheegi kartaa ha exactly in saan u fahnay kobca si fiican sanadkii ugu horeeyay runtii waxa customerskaygu ahaayeen ilaa 100 customer baan helay waayo fikirkan fikir cusub uu ahaa in dadku delivery loo sameeyo xafiiska lagu geeyo yara qariib ah shandadahan sidoo kale waan lagu qabsan jiray markaan suuqa maran ama kii dukaanka buufinay baan lagu oran jiray waayo concept ma fahansaneen laakiin waan ku soo gudubnay iminka appkayga waxa ku xiran oo active ah ilaa 2500 oo qof oo magaalada Hargeysa jooga marka si daily uma soo dalbadaan laakiin waa routine kolba ma taqaan waxa kamida matalan guulaha la gaaro hadba sida shirkaduhu ay uga gudbaan caqabadaha iyo dhaabadaha hor yaalla marka haalisaha aad filaysaan ama imika idinku gadaaman aad isleedihiin waa haaliso keeni kara inay habsami socodkii shirkadda dhaawacaan maxaa ka mid ah maxaa se xala ay idinka yaalla runtii koley marka dhalinyaro laga hadlayo weliba ganacsi iyo dhalinyaro laga hadlayo caqabadaha haysta way badan yihiin caqabadahana koley businessyada dhalinyartu sameeyeen baan kala mid nahay caqabada ugu weyn ee na haystaa waxa weeyaan yani in financial institutionskeenu aanay u jajabnayn inay dhalinyaradii halabuurka lahayd ay caawiyaan waayo iminka anagu waxaanu aaminsanahay kobac ka badan inaan samayn karaynay haddii aanu heli lahayn facility oo aanu heli lahayn mataqaanaa wax badanna loo fudaydiyo waayo suuqan waa suuq dahin Ethiopia halkan naga xigtaa Kenya naga xigtaa marka haddii adeegan la balaariyo waa adeeg dhaqaalana laga samayn karo sidoo kalena shaqo abuur aad u badan laga heli aad baad mahadsantihiin cabdiraxmaan su'aal lagu daraya waqtiga dhacay laakiin su'aal baa doonayay waxa tiri 7000 baan dalbanay waxaan ku qabanaynaa waa kitchen la sameeyo mootooyin delivery bags sidee baa 7000 waxa soo dhan ay kugu wada qaban kartaa adoo aad waqti ma haysatid soo koobaya business ama qorshaha ganacsiga si detail ugu qornay iyadoo table marka 7000 waxa weeyaan waxaan ugu talagalay inaan ku sameeyno mootooyinka waxaan iibsanay 3 mooto oo midkii averagely waxa lagu ilaa 1500 baa la siiyaa 3500 baa laba computer oo aan ka iibsanay qolada super data oo iyaguna ahaa okay way diiqaysaa adigu waa way ku halka ma ku xusan tahay waxa weeyaan super data waxaan ka iibsanay 3 computer oo min 500 oo 1500 3 mooto oo min kuna waxa weey $3,000 iyo qalab equipment kan ugu talagalay qalabka jada by commercial kitchen management sameeyno oo u dhaxayntan anagu aan ka baxno oo anagu cunto yani dhadhankeedii iyo qiimaheedii anagu aan goynayna aan dadkii u provide karayno baahi baan ku timid runtii marka aad baad mahadsantahay marka business profitable ma yahay kama faa'iido leeyahay cabdikariir aad baad mahadsantahay faa'iido waan sameynaa si business plan-kayga ku qoran iyo income statement-kayga waan idila wadaagi karnaa ilaa waxa weeyaan mataqaanaa faa'iido fiican waan sameynaa bishii iyo sanadkiiba masha Allah aad baan mahadsantahay shacabka u tutaan kooxda dalba food aad iyo aad bay mahadsan yihiin run ahaantii fikrad aad qurux badan oo casri ay soo bandhigeen run ahaantiina shaqaysay waxaan rajeynayaa intan in ka badan sii shaqayso sidoo kalena inay guuleystaan baan rajeynayaa waxaan idin leeyahay insha Allah oo inoo iyo beritoole iyo hal abuurka kale ee tan xigta